tirada golaha wasiirada oo la kordhinayo wuxuu madaxweyne Muuse Biixi ka yiri wada hadallada Soomaaliya Somaliland ra'iisul wasaaraha cusub oo shaaciyay sida uu u wajihi doono arrinta gobolka Gedo fadeexad masuq ah oo ku habsatay wasiir Bayle iyo magacyada wasiirada cusub ee ra'iisul wasaare Xamse uu soo magacaabay doono la shaaciyay qaarkood waa xogo hoose oo bandhiga TV u helay fadlan sii share garee muuqaalkan sidoo kalena qaybta follow-ga ama subscribe-ka noo saar waa bilaash waxaan idin soo gudbin doonaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo dunida. ra'iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo helay codka kalsoonida ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilaabay dadaaladii ugu dambeeyay ku aadan dhismaha xukuumaddiisa. Xamse Cabdi Barre oo ballan qaaday inuu dhisi doono xukuumad tayo leh oo dalka Soomaaliya ka samata bixin karta dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya isla markaana wada tashiyo ku aadan magacaabista golaha wasiirada oo ka qaybgelin doono siyaasiyiinta iyo xildhibaanada labada aqal. xogo hoose bandhiga heshay ayaa waxa ay tilmaamayaan in ra'iisul wasaaraha cusub uu qorsheynayo inuu kordhiyo golaha wasiirada cusub ee Soomaaliya. wararka ayaa intaasi ku daraya in Xamse uu doonayo in wasiirada uu gaarsiiyo tiro gaaraysa 30 xubnood halka markii hore ahaayeen 26 wasiir. qorshaha wasiirka koobaad ee xukuumadda cusub ayaa ah inuu soo kordhiyo ugu yaraan ilaa 4 wasaaradood oo ay ka mid tahay wasaaradda deegaanka. qorshaha wasiirka koobaad ee xukuumadda cusub ayaa ah inuu soo kordhiyo ugu yaraan ilaa 4 wasaaradood oo mid ka mid ah ay noqon doonto wasaaradda deegaanka. ra'iisul wasaaraha cusub ayaa la filayaa in maalmaha soo aadan uu ku dhawaaqo golihiisa wasiirada kadibna uu horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya si loo meel mariyo. xukuumadda cusub ayaa waxaa horyaala shaqooyin adag ugu horeysa wax ka qabashada ammaanka xaaladaha abaareed ee haatan ka jira Soomaaliya. dhanka kale ra'iisul wasaare Xamse ayaa wada tashadii ugu dambeeyay waxa uu la qaadanayaa qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta si uu soo magacaabo golihiisa wasiirada iyadoo si toos ah ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre uu bilaabay kulamadii ugu dambeeyay ee xukuumadda cusub ku soo dhisayo ay hadda waxa siyaasiyiin badan ee mashquul ku noqdeen xilal ay raadinayaan. shalay ayuu codka kalsoonida Barre helay waxaana wasiirada uu magacaabi doonay xukuumaddiisa la filaya inay noqdaan ugu yaraan 30 wasaaradood oo kaliya siday xaqiijiyaan ila muhiim ah. ilaa 4 wasaaradood ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in lagu soo kordhin doono xukuumadda uu soo dhisi doono waxaana ka mid ah wasaaradda deegaanka iyo midda bay'ada. xogo hoose oo bandhiga TV u helay ayaa tilmaamaya in wasiirada qaabkan loo magacaabi doono wasiirka gaashaandhigga Cabdullaahi Maxamed Cali Sanka Xaaji halka wasiirka cadaaladda loo magacaabi doono Xasan Macalin Maxamuud. wasiirka caafimaadka waxaa loo dhiibi doonaa Maxamuud Cabdiraxmaan Beene halka wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta loo dhiibi doono Abshir Maxamed Bukhari. wasiirka howlaha guud iyo guryeynta Soomaaliya ayaa waxaa laga dhigi doonaa Axmed Macalin Fiqi halka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya loo magacaabi doono Professor Maxamuud Cali Sheekh Doodisho halka wasiirka maaliyadda loo wado Dr. Cilmi. waxaa laga yaabaa in isbeddel ku yimaado wasiirada magacyadooda isla markaana ay wasaaradaha qaarkood isbeddel ku yimaadaan shakhsiyaadka la magacaabayo. dhanka kale waxaa macquul ah in xukuumadda cusub ay ka soo muuqdaan mas'uuliyiin xilal ka haya dowlad goboleedyada qaarkood sida Jubbaland iyo Galmudug. dhinaca kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka jeediyay munaasabad ka dhacday magaalada Hargeysa isla markaana lagu xusay 26 Juun ayaa ka hadlay arrimo xasaasi ah oo ku saabsan wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Muuse Biixi ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka Soomaaliya looga baahan yahay inay ka garbaxdo Somaliland ayna iska dayso hadallada ku dhisan afmacaanida. madaxweynaha Somaliland wuxuu xusay in Xasan Sheekh Maxamuud oo mar labaad loo doortay madaxweynaha Soomaaliya uu xogogaal yahay isla markaana uu ka rajeynayo inay sii socdaan wada hadallada labada dhinac oo marar kala duwan ka dhacay dalka dibaddiisa. dowladda cusub ay dhisayaan iyo ninka odayga ah ee wada hadalladeena aynu xogogaal badani u tirinayo madaxweynaha iyo hadalka wanaagsan ee mar walba la yimaadaan walaalahayga Somaliland waxaana uu muujinaynaa inaanu wanaag u qabno isla markaana ka garbaxno ayuu sheegay Muuse Biixi Cabdi. dhanka kale wuxuu intaasi ku daray in mowqifka Somaliland ay doonayso in madaxbannaanida uu cad yahay balse ay rabaan oo kaliya in lagu kala baxo miiska wada hadalka.
hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo hakad ay galeen wadahadaladii u dhexeeyey Soomaaliya iyo Somaliland kuwaas oo horey loo dhaqaajin sanadihii la soo dhaafay sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale walow aysan ilaa hadda helin wax ictiraaf ah waxaana dhacdadaani ugu dambeysay ee ka dhacday magaalada Nairobi kadib markii uu safiirka Soomaaliya uu isaga baxay shir lagu casuumay oo ku arkay wakiilo ka socday Somaliland kuwaasi oo Kenya ay casuumtay ugu dambeyntiina hadiyaan xafiiska xilaalinta Soomaaliya ayaa doonaya inuu su'aalo weydiiyo wasiirka maaliyadda ee xilka ka sii degaya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle waxa wax laga weydiin doonaa dambiyada maaliyadeed iyo musuqmaasuqa ka dhacay xafiiskiisa waxaana Beyle lagu amray inuu tago xilaalinta horteeda 27 bisha Juunaan baarayaal ka socda waaxda maaliyadda dhaqaalaha dambiyada internetka ka dhacay xafiiska xilaalyaha guud ayaa u yeeray wasiirka maaliyadda si ay su'aalo u weydiiyaan ma caddayn baaritaanku si toos ah ula xiriirinayo Beyle ama madaxda kale ee wasaaradda ama dowladda waqtigu ka dhamaaday Beyle ayaana weli ka jawaabin warkaas u yeerista maalinta beriyaha loo yeeray wasiir Beyle ayaa timid maalmo kadib markii Beyle uu sheegay in qasnada dowladda ay wax lacaga ku jirin isla markaana khatar ku jiraan mushaaraadka ciidanka lacagta miisaaniyadda sanadka 2020 ayaa waxa ay gaaraysaa 917 bilyan taas oo loo gudbiyay baarlamaanka si uu meel mariyo kororka dhaqaalaha jira ayuu Beyle yiri lacag ma taalo muddo dheer ayayna farta ku mudneed wasiir Beyle oo la hadalhayay inuu xariif ku yahay wax isdabamarinta walow aan la ogeyn qaabku isaga difaaci doona Beyle eedeynta loo soo jeediyay